بسم الله الرحمن الرحيم محمد صالح weeye mar kale odayaal beryahanba waxaan waday barnaamij aan u bixiyey wacyi laba macnayna yeelan kartaa wacyigu waa wacyigelin marna waa wacyiga lagu jiro labadaba ereygaasi waa accommodate garaynayayo waxa weeye waa anigu saa u fahamsanahay waxaan ogaaday waxaan igu khasbay arrimahan inaan ka hadlo waxa weeye waxaan ogahay dadka Soomaaliyeed inaanay Yurub u iman lacag iyo guryo qurux badan waxaan se u qiyaasi karaa anigu kulli inay Yurub yimaadeen iyo Westernka u yimaadeen inay wax bartaan ama carruurtooda wax bartaan taa waxaa caddayn u ah waalidiin badan oo hadda ka soo guray waddamadan Yurubta kale oo UK kale soo degay oo guryo qurux badan ka soo tegay oo lacag ka soo tegay baabuur qurux badan ka soo tegay waxaad garanaysaa inay leeyihiin carruurtoodu inay wax bartaan baan rabnaa waa runtiin xaq baad u leedihiin opportunity-gi waa haysataan carruurtiinu waa talenty idinku waalid motivated aad tihiin marka maxaa idinka dhiman waxaa idinka dhiman in inta idinka dhiman laydinku daro oo sida in waxbarashada waddankan wax ka fahamtaan waddamada Yurub oo settingka iyo sida carruur u kala fadhiyaan iyo sida loo kala qiimeeyo iyo waxaas oo dhan wax laga ogaado waayo Soomaaliya haddaad dib ugu noqoto waxbarashadii Soomaaliya setting foundation iyo higher ma kala lahayn set 1 set 3 set 4 ma kala lahayn waxay ahayd hal set baan ahayn haddaad dhacdo 1 year baad dib u haraysay haddii kale waa baasaysay marka Yurub ilmuhu hadduu galaaska uu lama dhaco sidaa daraaddeed year 7 year 8 year 9 year 10 year 11 it doesn't mean that you go A stars laakiin laguma hayn karo so you move to 16 plus marka anugaagu hadduu year 9 u gudbo macnaheedu ma inuu imtixaankii boqol keene maaha waxaa dhici karta inuu foundations fadhiyo adna aad tirahdo he's year 9 waxaa dhici karta inuu GCSE bottom set fadhiyo adna aad tirahdo wiilkayga A star buu keenaya way dhici kartaa because you don't know waxa kaloo ka cad waalidiinta markaad ku aragto dukaamada buugta laga gato buug qaaliya gadanayaan oo kulli higher ku qoran tahay because higher is higher marka yaa dhehi doona war walaaloy buugtan higherka cunugaaga ay sure inuu higher yahay kulli guryahana buug higher ka buuxa is very good soo noqdo marka topican galabta ka rabo inaan ka hadlo maanta idin ka hadlo barnaamijdan horta muddo badan baa igu canaananay inaanan qaban marka waxaan moodaa inaan la dahay wax badan laakiin alxamdulilah pointi muhiima ayaan rabaa in wax ka yidhaahdo wuxuu ku saabsan yahay carruurteena secondaryga ka baxayo 16 plus aadayo 3 baan u qaybiyey anaa qaybiyey qaladkii badana iskale qof kale lama wadaago group A group B and group C maxay kala yihiin group A markay year 10 soo gaaraan markay year 11 ku socdaan they know what they want to do way garanayaan waxay baranayaan targetkoodana waa garanayaan strategic learners way olada gabdhaha u badan baan rabaa bay ku leeyihiin kuleedkaasaan rabaa bay ku leeyihiin biology chemistry baan rabaa bay ku leeyihiin medicalina bartaa bay ku sheegayaan dibweekin hard saddexda habeenkii bay seexanayaan imtixaankana bay keenayaan tijaabada bay keenayaan kan mooga bay keenayaan kan juun la qaadanayo A star bay keenayaan group A gabdhaha ku badan laakiin wiilashuna ku jiraan yaan ragga ka reebin kulleedka markay tagaanna 2 sano uga baxaan jaamacaday aadaan 3 sano uga soo baxaan they are real professionals waa kuwaas community-geenu qolada ma ka faa'iidaysta iyo ha oo maya waa su'aal kale taas waa qolada labaad B aan u bixiyey gabdho waa ku jiraan laakiin wiilasha u badan waa talenty laakiin waa qolo iska laysiya marka waxay rabaan in markasta la daba la mushgareeyo
still key stage 4 aan ka hadlaynaa iyo college baan la soconnaa ila socod qoladaasi 8 bay keeni karaan targetkoodu yahay laakiin hadda 4 buu haystaa wuxuu ku leeyahay I can yes laakiin waxay u baahan yihiin in la xasuusiyo mar kastaba war soco war yeel war soco war hooma ka shaqay war hadaahin haddii saa lagu wado eebuu keenaya gruubkaas marka okay imtixaanka GCSE marka lasoo dejiyo marka labay noqonayaan iyo ruuxoodu qolo intay wixoodii eedoodii iyo b iyo levelka fiican keeneen gudbay collegeka aaday iyo qolo wax ku soo noqdaan oo English ama Maths qoladan ilaa waa talenty waa niman aad u caqli badan teamkaasi groupkaasi iyo gabdhaba oo soo waxbarashada qiimo meel fiican gaari kara laakiin waa iska lazy motivated maaha waxa ma kala jeclaa collegeka markuu tago isagoo ay wato business iyo qaadanaya waxaan la aqoon business IT iyo business iyo IT iyo sport studies what are you ever time maxaa business studies ku dira adiga no it's easy you know waxa laba sano collegeka joogaya hadhow alxamdulillah hadduu ka baxona jaamacadda business studies laakiin haddii kale waxaa dhici karta in la yidhaahdo ila GCSE dabada laga soo waday inuu hadhow bilaabo inuu galaasyada uga gooyo la yidhaahdo we cannot keep you here oo college kala dib u bilaabo qoladii marka iyagoo marka hore albashgaraynayaba hal buunta ku soo noqotay wax ku soo noqdeen English ama Maths collegeka markay tagaan waxaa la oranayaa you need to retake inaad dib u samayso waay wuxuu oranayaa anigu original theory-gan wato wuxuu ahaa inaan biology iyo Maths sameeyo iyo computer science collegeka qaarkood saasay ku oranayaan laakiin English baan ku dhacay ama Maths waxay oranayaan iskuulku dhegeyso unless you pass Maths or English hore uma socon karto marka maxaa samaynaysaa ko English iyo Maths aan ku dhacday baan kugu qoraynaa labana saddex maadoo kale oo field the guards la yidhaahdo baan kugu daraynaa waayahay buu oranaya markuu laba bilood deganayo niyaddaa ka jabaysa oranaya waxaan rabay maaha businesskan iyo waxaan wuxuu bilaabayaa inuu gogooyo qoladaas halkaa markii maraysa collegekana wareer badan baa ka dhaca markaan soo dhammaystiro qolooyinka oo dhan baa idiin sheegi doona dhibta ka iman karta marka niyaddaa ka xumaanaysa wuxuu kule so what aniga business studies ma baranayo so maxaa khatara marka waxaan waa package oo isku xiran tahay sanadka soo socda inaad retake samayso waxay ku xiran tahay inaad kuwaana samayso si package ay u noqoto si fiican sanadkan uga baxdo adigu waad aragto next year dib u bilow A level kaaga dhib male laakiin yaa gaaraya qolada B soo maaha qolada C baa inoo soo haray qolada C la yidhaahdo iyagu markii hore qayb ka mid ah waxbarashada ku adkeyd laakiin ugu Soomaali waana ma naqan waxaa cunugiya star qaarkood notice bay u badan yihiin they don't care wuu soo dahayaa dagaal hadduu galo ma kala jeclaa haddii la cayriyo ma kala jeclaa haddana inagu alxamdulillah waalid baa nahay markasta rajaan qabnaa in carruurteen wax fiican keen waxay u dhowdahay inuu baaso insha allah ama 50-50 maadooyin badan 2-3 keeno grade keeno waxna ku baaso waxaa khatara marka idin sheegaya anogaas markuu haddaba saas ahaa oo aadogeyd markii hore A level maxay collegeka ugu daran baan geynaa A level baan rabaa baan leeyahay hadii waalidkii A level wiilkii raba war A level group A baa adi karay ninkan ma adi karo collegeka ku tagay ala kula graduate 16 to 19 ya maqaan waa lagu talagalay dowladdu lacag bay haysaa they accommodate you result waxaa la fiirinaya resultiga reference ayaa la fiirinaya waxaa la oranaya okay business studies IT what else maxaa kale BTech BTech ama qolada B way ay kuwan ma waa okay routine ka caadiga marka GCSE uu aadayo iska aadaya laakiin waxa dhiba xagga markuu tago si weyn baa loo dhaqmayaa lateness so GCSE markay dhiganayeen
annagaa guryaha u wici jirnay, annagaa waalidka u yeeri jirnay, annagaa wax xasuusin jirnay, macallimiintaa daba socday. laakiin kuleejkii markuu tagoy laysdaba socdo, nin weyn baa lagula dhaqmayaa, war waxaa rabto baro, aday ku jirtaa. maalin baa la soo daahayaa, maalin baa la goynayaa, maalin baa la sheekaynayaa, maalin baa imtixaan loo goynayaa, banaankaa la soo dhigaya. halkaa waxaa iska heli doona qolo kaloo heli doonaa marka, oo isna u dhigma dhaqankiisa leh. qoladaas tiimkan qolo kale heli doonaan, kolajooyin kale ka yimid iyagu ruuxooda. Chill out, don't care, man, yes. qoladii biidana qolaa kusoo biiri doona halkan, niyadda kasoo xumaatayo demotivated noqday. maxaa dhacaysa marka? kuleejka markii la marayo November ama maxaa la oranaya, warning baa la siinaa, warqadaa loo diraa guriga, kabacdi waxaa ku xiga next year lagu hayn maayo. we cannot keep you here, your attendance is very low. September dambe wuxuu aadayaa kuleej cusub. They welcome you. Okay. عارفة؟ Okay. retake again. retake marka maxaa la rabay November inuu galo, muu gelin, wuu ku dhacayaa. June baa la rabay, June hadduu maba gaarin baba, attendance-gii baa wareeray. aan soo urusho, waxaa arki doontaa 4 sano ka bacdi, sanadkii 3aad, sanadkii 4aad, oo kuwii aadu ay jaamacaddii muxuu harta 1 sano, buu wuxuu ku leeyahay kuleejkii 4aad baan hadda caadaya oo soo bilaabaya. halkaa marka maxaa ku jirtaa? intaa wareegayo ma shaqaysto. onogan 22 jir buu gaaray, lacag badan ma haysto, gurubay kaloo sii baranaya, lacag bay siinayaan, baabuur alla aqoon buu kaxaysanayaa, wuu sii fogaanayaa, adiga uu kaa sii fogaanayaa, isagii society uu ka fogaanayaa. aniga wuxuu leeyahay intaasaan jiraa, imtixaanadaan rabay ma baasin, hooyada iyo aabbahay meesha iga rabeen ma gaarin. wuu sii fogaanayaa, wuu sii fogaanayaa, wuu sii fogaanayaa. bari wuxuu diyaar u yahay inuu galo wax alla wixii loo diro galo. this may worry aniga. halkaa marka maxaan ku taliyey? ii sheega waxaan ku taliyey anigu oo taladayda gaaban, aniga oo kooban aan idiin soo jeedinayo. ay cilmi badantiin idinka, ay khibrad badnaan kartaan. talada maxay tahay? kow, biliis ilmihiina markuu yeernaanka dhammaynayo waa inaad kala garantaan baabuurta noocay wataan. baabuurta noocay wataan maxaan kala jeedaa meeshu wax ku wado iyo wuxuu ku wado iyo targetkiisa isu shaqeynaya. yarteen baa la gelaya, ma baan ku darnaa, ma bii baa ku jira, mise saas oo la soconaynaa. okay, halkaa marka la gaaro qoladaa eeda maasha allah iyago okay. qoladaa biida la yidhahda ka hormaraya kuleedka markay aadaan bariis yaan laga harin, laba yaan looga harin. kow, selectionka subjectka maado fiican qaato, waayo wuu haystaa dhibci hadduu haysto. labo, hadduu ku dhacayo hal maado laga daba tago, ha ku dayniso inuu isdabiro, wuxuu ku odhan doonaa okay, I will do November. ha aaminin, macallin u qabo casharadaas, guriga imtixaanadii dib ha loogala shaqeeyo, keliga ha u dirin, haddii kale 4 sano kugu qaadanaysaa wallahi. hadduu June ku dhaco oo November ku soo dhaco, June inuu attendance-ga oo business-kan iyo waxa lagu qoraan sheegay oo uu leeyahay ma jecli, waxa la waa qasab because condition baa inaga xiran, GCSE-deeni aan rabno oo mustaqbalkii baa inaga xiran. please class-ka xaadir, do what you can do. sida GCSE waa inuu la socdo ilaa uu kofar garaynayo sanadka koowaad, oo waa sanadka ugu muhiimsan weeye inuu recover sameeyo oo wixiina soo baaso successful noga baxo. marka laba option buu leeyahay, inuu A level dib u bilaabo iyo inuu college kala aado isagoo marka clean ah. waana noqdaan proactive, ka hormarno, hadduu reactionist noqon waa la soo ceyrshay, waa la yeelayo. qolada siida inoo soo hartay, qolada siida ilaahay hadduu GCSE ka saaro A level ha u dirin, badankooda wiilasha u badan yihiin.
partnership u dir farsamo u dir technology u dir A level ha u dirin they cannot survive waxaad u dirtaa waa la helayaa markii la buuxinayo haddoo kale iyo beri lasoo dhaafay yeer elemanka kuleedka la buuxinayo waa taqaaninkan hadda waxbarashada qaatay ka taagan yahay waxa u dirtaa inuu building iyo farsamo iyo muxuu ahaa plumbing iyo wax u dir farsamo waay 2 sano ka bacd waa shaqaysanaya halka kii kuleedka loo diray 3 sano ka bacd xabsi galayo waayo kow ma awoodo ma baasi karo dhaqaale ma haysto saaxiib xun buu yeeshay wuu wareeray wuu isdabirayaa is too late bay noqon doontaa waalido qodobka ugu dambeeya wuxuu yahay marka dhowr xal waay qayb waa qaybtaada soo socota inaan kasii hor dhacno ognahay informationkaas qayb waxa weeye already hadday process ku jiraan waa year 11 kuleedku wuxuu ku yahay yeerkii koowaad waa kuwa hadda ka sheekeynaya leeyahay imtixaanaha kusoo noqday qolona waa qolo 3 sano lasoo dhaafay kuleejooyinkiisa u wareegayo hadba kuleej tegayo waan soo sheegay sababtina number 1 haddana please qolada hadda galay kuleej ku jira year 12 ka ah oo sanadkii hore wax ku soo noqdeen please halala shaqeeyo yaan laga harin kow haddii imtixaan la geli doono waalidka waxaan kula talinayaa private tuition u qabo 10 imtixaan lagala shaqeeyo la soo qaaday ina practice bonus wala yiraahdo wuxuu baranayaa techniques-ka imtixaanada looga shaqeeyo baranaya su'aali uu grade 2 keenayay 8 buu keenayaa 6 taas waa mid haddii la yiraahdo imtixaanka la qaadi maayo macallimiinta qiimeyn doona oo kii hore 3 buu watay macallimiintii marka kuma garanayaan see la yeelayaa waxa waalid kula talin lahaa arrintan xal loo doono xalku waxa weeye macallimiinta in hadda lala xiriiro la yiraahdo macalligiisa adiga ani subjectgan igu soo noqotay 7 baan rabaa ama 5 baan rabaa imtixaankiina wuu baaqday maxaa tala ah marka maxaan rabnaa imtixaanka June inta ka horeysa in ardaygan shaqooyin badan loo diro oo uu ku muujiyo levelkiisa inuu ka soo kacay 3 oo ilaa high level soo gaaray kaasana lagu qiimeyn doonaa qolada ugu dambaysa ugu wariga badan oo aan yiri qolada siida hore halkaan geeyay kuleedkana 3 sano wareegayay oo sanadkii afraad ku jira qolada waalidan waxaan diran lahaa aan idin sheego qolada waxaan qabaa withdraw inaad ka soo saartaan run about baan u bixiyay ku wareegayaan maalinba kuleed bay tagayaan sanadba lacag baa loogu shumayaa kuleedka soo kuleedkana dhexdo kaga tagayaa kuleed cusub uu tagayaa saas uu soconayaan 22 buu gaaray markuu sii fogaadana waa sii fogaanaya qoladan waxaan oran lahaa inay sheegin in loo yeero kaale soo fariisalka annaga ku dhalnay wiilkaydu waa tahay gabadhaydu waa tahay wiilasha u badan qoladaas you know our expectation saacadan waxaan kaa rabnay baabuur fiican inaan wadato degree fiican inaan wadato and you know that ma dhicin don't worry what if balista what if ma dhicin no more kulay forget from September shaqaa tagaysaa laysinkii waa kan security-gii waa kan shaqaa tagaysaa 1 year markaa shaqaystana waa guursanaysaa mid fiican baa noqon doontaa hooyo ka war aniga jaamacadayda mustaqbalkana xagga don't worry markaad guursato oo aad shaqaysato oo aad mid degan noqoto oo aad isdabirto haddaad rabto inaad wax barato oo mentally aqaan gaarto ayaa habeenkii laba dhowr saacadood kuleedka tagaysaa maths iyo English baa samayn doontaa markaa soo qaatana access course baa hal sano samaynaysaa markaa soo qaatana jaamacadda rabtaad galaysaa oh yeah I didn't know that yes solutions baa loo baahan yahay haddii kale maxaa dhici doonaa gruubyadan ka soo hadlay hal way baa jiro la yiraahdo maxaa one way oo tii road muxuu ku soo dhamaadaa you know where I don't want to tell you السلام عليكم ورحمة الله وبركاته intaasaan kusoo gabagabaynayaa
ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu idinka dhigo qoladii wax ka faa'iiday barnaamijyadan ujeedada weyn waxa weeye inaan soo saarno waalidka soomaalida waxaan u sameeyaa target setting wax la yidhaahdo cilmiheenu markuu 18 gaaro inuu soomaali yahay inuu muslim yahay iyo inuu haysto digriiga aqoonta ay leeyihiin dadka la filka ah marka intaa dhan annagu contributionka iyaga waalidow 80% shaqada idinka qabanaya annaga iyo dadka kale aniga la mid ah just waa ku darid xoogaa ah ujeedaduna waxa weeye waxaan rabnaa caruurteena westernka jooga oo opportunity-ga haysta inay ka faa'iidaystaan laakiin inagu waa inaan ku darnaa informationka inta ka maqan iyo talooyinka inta ka maqan inaan ku darno insha Allah halka ka soo bixi doonto ummad successful adduunya wal aakhirah again salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh